السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan rabaa inaan ka wada shaqeyno su'aalooyin calaqala leh qaybta accounting equation-ka. inta aynan su'aalahani ayn ka wada shaqeynin waxaan jeclahay marka hore inaan isla muraajaceyno accounting equation-kii aan cashirka ku soo qaadanay muraajaca ahaan in aan dib isha u marino sifa wixii mugdi weli kaaga jiro aan meesha uga saarno. idan mucaadalada ugu weyn ee aasaaska ee laga duulayo waxa weeyaan in asset-ka ay la mid tahay capital oo lagu daray liability. okay haddii waxa la raadinaya ay tahay capital maxaan samaynaynaa kaliya liability-ga ayaan raraynaa oo dhinaca kala geynaynaa kadibna maxaan leenahay asset oo laga jaray liability maadaama liability-ga markii hore ay plus ahayd haddana ay ka gudubtay xuduudii equal-ka idan calaamadda ayaan bedelaynaa sign-ka. idan asset oo laga jaray liability maxay la mid tahay capital. waxaad kaloo hoosta ka xariiqdaa haddii capital lagu dhaho iyo haddii net asset lagu dhaho isku macno ayaa loola jeedaaye ha yeenan arrintaasi ku marin habaabinin. idan capital iyo net asset waa isku mide marka la rabo in la soo saaro capital ama net asset maxaa lagu soo saaraa asset oo laga jaray liability. inta misla haynaa okay waxa suuragal ah in capitalka aan expand garayno capitalkani inaan expand garayno oo aan ku soo darno capitalka waa maxay waa maalgelintii aan samaynay shirkadda markaan maalgelin ku samaynay sanadkii dhannaa maxay samaynaysay way shaqaynaysay dakhli ayay xaqiijinaysay waxaa ka dhashay profit. idan profitkaasi xagee buu mucaadalada ka soo muuqanayaa qaybta capitalka ayuu ka soo muuqanayaa. idan wixii profit ah waan ku daraynaa qofkii shirkadda iska lahaa wixii shirkadda uu kala baxay sanadkaasi gudihiisana maxaan samaynaynaa waan ka jaraynaa. idan haddii aan dib u qorno isla mucaadaladii hore haddii aan dib u qorno annaga oo ku soo darayna keliya dakhligii shirkadda ay samaysay iyo wixii lagala baxay waxaan dhihi karnaa in mucaadalada aan mar labaad dhahayno in asset ay la mid tahay capital oo lagu daray profitka shirkadda oo laga jaray drawingka oo lagu daray liability-ga. inta mislahayna okay mid kale ogow laftigeeda profitkan xagee bay ka timid profitkani ma raba inaan sii ballaariyo laakiin profitkani maxay u taagan tahay waa macluumo basic weeye. profitka waxay u taagan tahay revenue oo laga jaray expenses revenue oo laga jaray expenses. idan halkii profit laga dhihi lahaa haddii lagu dhaho capital oo lagu daray revenue oo laga jaray expenses oo laga jaray drawing waa the same ee arrintaasi iyo confusion kugu keenin. soo far meela haysa intaasi okay now aanu soo laabanno waxaan isla ognahay in shirkaddu capitalka markaan ka hadlayno waa maalgelinta ugu horreyso laakiin sanadka ugu horreeya markaan maalgelin samayno dhammaadka sanadkaasi muxuu noqonayaa xisaabka maalgelinta keliya capital ma ahaanayo ee wuxuu noqonayaa markuu sanadka dhammaado closing capital ayuu noqonayaa. idan closing capital sidee baa loo soo saaraa sifa aad closing capital aad u soo saarto waxaad u baahan tahay opening capital shirkadda maxay maalgelin samaysay oo lagu daray capital introduced shirkadda ma jirtaa maalgelin dheeraad ah oo ay bixisay. capitalkani waa bilowga sanadka weeye. idan opening capital bilowga sanadka oo lagu daray capital introduced wixii shirkadda maalgelin dheeraad ah ay samaysay oo lagu daray profit oo laga jiray drawing maxaa kuu soo baxayo closing capital. ka waran halkii aan capital ka isticmaali lahaa haddii aan ku bedelo waxaan ku weydiiyey closing net asset ereygii net asset ayaan ku bedelay. closing net asset haddii aan ku weydiiyo keliya capitalka uun meesha ka saar. idan waxaad leedahay opening net asset oo lagu daray capital introduce isma bedelayse oo lagu daray profit oo laga jaray drawing ayaa waxa uu ku siinaya closing net asset. okay su'aal kale lagu weydiiyey waxaa lagu dhahay profitka ayaa lagu weydiiyey shirkadda profitkeeda. profitka shirkadda haddii lagu weydiiyo waxaad samaysaa qaybtani maadaama profitka ay ka tirsan tahay qaybtani waxa lagu weydiiyena profit ay tahay qaybaha kale oo dhan rar xuduudda ka gudbi xuduuddii equalka ka gudbi kadibna profitka sideedii u daa si simple aan rabaa inaan kugu baro. idan maxaan leenahay marka waxaan leenahay
closingka waxay hadda waa maxay su'aasheeda profetka ayaan rabnaa inaan hadda ka jawaabno hadda maxaan rabnaa inaan ka jawaabno qaybta profetka ayaan rabnaa inaan ka jawaabno okay idan waxay la mid tahay profetka sifa aan u soo saarno waxay la mid tahay closing capitalkii waa ayadaa loo imaanayaa okay qaybtan kale marka aad rarayso su'aal baad isweydiinaysaa waxaad leedahay openingka waxaan rabaa inaan raro oo aan ay ka gudubto xuduudda equalka idan openingka calaamadeeda waa maxay calaamadeeda hadda waa plus maadaama ay ka gudbayso calaamadda u bedel idan calaamadan u bedelnay oo halkii plus ay ka ahayd minus idan closing oo laga jaray opening okay capital introduce markii hore maxay ahayd calaamadeeda plus weeye hadda xuduudday rabtaa inay ka gudubto minus dheh kadibna soo rartan laftigeeda okay profetka waa wixii aan raadinaynay meel dhig drawingka calaamadiisa muxuu ahaa minus ayuu ahaa muxuu ka gudbayaa xuduudda equalka oo wuxuu u tagayaa qaybtii closingka kadibna waxaan leenahay oo lagu daray calaamadda isbedelaysa oo lagu daray idhe okay 1 minute oo lagu daray idhe qaybtii drawingka idan maxaan samaynay marka waxaan samaynay inaan soo saarnay profetka annaga oo ictimaadayno mucaadaladii aan already hadda aan haynay intaan isla haynaa okay su'aal baa taagan marka su'aal kale aan ku weydiinayaa su'aasha aan ku weydiinayo waxa weeyaan ka waran adaanan kuu daynayaa ka waran haddii waxa lagu weydiiyey ay tahay waxaa lagu weydiiyey drawingka ayaa lagu weydiiyey bimacnaa hadda su'aasha profetka waan isla fahnay qaabkaan u samaynayno drawingka lagu weydiiyey maadaama drawingka lagu weydiiyey wixii ka soo haray keliya dhinaca u rar calaamadana bedel oo ka dhigan closing oo laga jaray opening oo laga jaray capital introduce oo laga jaray profetka maadaama oo ay wadato minus plus ayadana laga jaray ayaan leeyahay oo laga jaray profet ayaa waxaa kuu soo baxayo drawing intaan isla fahnay I hope inaad intaa ila fahantay ayaan rajaynayaa haddii conceptiga aad ila soo fahantay aan u imaano su'aasha ugu horeyso aan ka wada shaqayno okay su'aasha maxaa la weydiinaya waxaa la rabaa in aan dib u qoro mucaadalada accounting equationka inaan dib u qoro ayaa laga rabaa mucaadalada accounting equationka sifa aan kuugu sharaxo aan mucaadalada isla soo qaadano copy dheh kadibna meeshan soo hoos dhig okay now aan dhahno isaawi bay ahayd okay now maxaa la yiri marka waxa la weydiinaya calaamadda firis waxa lagu weydiinaya waa maxay closing capital ayaa lagu weydiiyey okay closing capital ka soo qaad inay capitalkan ay tahay bimacnaa waxay ka dhigan tahay sifa capitalka aad uga jawaabto bimacnaa waa inaan rarnaa qaybtani oon geynaa dhinaca kale idan asset oo lagu daray profetka wuxuu ahaa plus idan marka aan rarayo oon assetka u geynayo markaan assetka u geynayo mafruud inuu minus noqdo idan qaybtani waa khalad is that clear waa khalad su'aasha ugu horeyso okay aan talabaad isla fiirino maxaana la weydiinayaa waxaa lagu weydiiyey capitalka iyo profetka waxa ay la mid tahay ayaa lagu yiri bimacnaa capital iyo profetka iida waxaa la rabaa inaan rarna labadan qayb idan waxaan leeyahay asset oo laga jaray liability waa sax oo laga jaray liability okay labadan qaybtan waa sax asset oo laga jaray liability calaamadda waxay ahayd plus marka aan raray minus ayay noqotay idan qaybta ugu horeysa waa sax laakiin drawingka maxay ahayd minus ayay ahayd marka aan rarnay li'anno labadani waxay la mid tahay la yiri so waa in aan labadan aan qaadnaa oon dhinaca kale aan geynaa idan maadaama minus waxaa la rabay plus inay ahaato haddana minus ayaa la yiri idan tanna waa khalad ma ila fahmaysaa I hope inaad ila fahmaysaan rajaynaya okay hadda maxaa la weydiiyey hadda waxaa la weydiinayaa profetka ayaa la weydiinayaa fiiriya waa in aad marka hore garanayso waa maxay su'aasha la weydiinaya profet ayaa la weydiiyey bimacnaa qaybtan ayaa la weydiiyey maadaama profetka la weydiiyey waxaan samaynayaa wixii ka soo haray profetka ayaan rarayaa oo waxa ugu horeeyo assetka ayaa loo aadayaa idan liabilityga maxaa la sameeyey marka asset oo laga jaray liabilitygii waa la raray calaamadiina waa loo bedelay waa sax okay qaybtani sax weeye capitalkii plus ayay ahayd ayadana waa loo bedelay sax
drawing kii minus ayuu ahaa ayadana waa loo bedelay sax idan jawaabta saxda ahi waa qaybta saddexaad weeye laakiin aan dhamayno aan isla fiirino qaybta afaraad laftigeeda qaybta afaraad maxaana la weydiinayaa waxaa la leeyahay maxaa la leeyahay equalka qaybta ugu dambaysa iyo calaamadee idan capital oo laga jaray liability how come capital oo lagu daray liability in la dhahay ahayd capital oo lagu daray liability in la dhahay ahayd number 1 number 2 markaan drawingkii aan rarnay inay balaas ahaata ayaa la rabay idan tani afaraad way khaldan tahay I hope inaad ila fahmayso ayaan rajaynayaa aanu imaanna su'aasha labaad okay maxaana la weydiinayaa qof trader ah profitkiisa waxa uu ku xisaabin karaa formulaha soo socdo dabcan profitka waan isla soo qaadanay aan dib ugu laabanno aanan soo koobi garayno okay mucaadaladii asaasiga ahayd aan soo koobi garayno koobi iisoo dheh kadibna kan qaybtani sifa aan u analyze garayno okay now maxaa su'aasha lagu weydiiyey waa maxay profit ayaa lagu weydiiyey maxaa lagu weydiiyey profit ayaa lagu weydiiyey bimacnaa qaybtan ayaa la weydiiyey profitkan ayaa la weydiiyey idan sifa aan u soo saaro maxaan u baahanahay in aan qaybahan kale soo haray oo dhan inaan raro oon u geeyo qaybta closingka sifa profitka ay igu soo baxdo idan maxaan leeyahay okay opening capital oo lagu daray drawing opening capital maadaama oon raro minus inay qaadataa la rabaa kadib yani su'aashani waa khalad okay closing capital oo laga jaray opening idan openingki markaan rarnay minus ay qaadatay qaybtan sax waaye oo lagu daray drawingkii minus ayay ahayd dhinacanaan geynay plus ay noqotay waa sax capitalkii plus ayay ahayd marka aan dhinaca kala galay aan geyno bimacnaa su'aasha qaybta labaad ayaa saxan okay labada qayb ee kalena adiga isku day in aad khaladka aad soo saarto is that clear I hope inaan inta isla fahmayno ayaan rajaynayaa okay su'aashanna aan ka wada shaqayno aan isla fiirino maxaana la weydiinayaa su'aashani okay aan su'aashan isla fiirino kadibna su'aasha kalena aadaan saddex su'aal ayaa noo dhiman okay su'aashan aan isla fiirino maxaana la yiri su'aashani waxaana la yiri net asset iyo capital waa isku mid ayaan niri net assetka bilowga wuxuu ahaa 100,700 waxaa laga rabaa closing net asset bimacnaa waxay ka dhigan tahay closing capital idan mucaadaladii aan soo qaado mucaadaladii ayaan soo qaadayaa idan mucaadalooyinka haddii mid kuwa basiga aad ila fahanto adiga ayaa dhilin karo idan maxaana la weydiinayaa maxaa hadda la weydiiyey fiiri confusionka waxaa keenayo closing net asset lagu weydiiyey haddii aad net assetka iyo capitalka isla taqaano in net assetka iyo capitalka ay isku mid tahay mucaadaladan ayaad isticmaali kartaa laakiin haddii macluumada ay ka maqan tahay maskaxda ayaad xoqaysaa ila fahan wax idan maxaa la weydiinayaa closing net asset maxaan u baahanahay closing net asset sifa aan soo saaro opening capitalka oo ka dhigan bimacnaa inaan ku dhahay ka soo qaad opening net asset idan opening net asset waa meeqaa aan dib ugu laabano opening net asset waa lagu yiri beginning iyo opening waa isku mid idan waa 101,700 inta ii dhig 101,700 oo lagu daray capital introduce mucaadaladii dib ugu laabo macluumaadkii qaybtani waa profitka la isiiyey weeye 72,500 waa profitkii shirkadda new capitalka ay soo bandhigtay waa 8,000 idan mucaadalada aan rabo qaybta aan rabo 8,000 weeye okay profitkana waa meeqaa horay ayaa la isiiyey waatana horay ayaa la isiiyey mucaadalada haddii aad taqaano kaliya waxa weeyaan dabaqitaanku way sahlan tahay laakiin waxa ugu adag waa in aad mucaadalada aad analyze garayn karto okay drawingkana waxaa kaloo la yiri waxa weeyaan waxaa lagala baxay shirkadda alaab ayuu kala baxay qofka shirkadda iska lahaa qiimaheedu yahay 2,200 haddaba haddii aan isku soo dardarno closingka marka muxuu noqonayaa closing net asset closing capital waa isku mid waxaan leenahay openingka oo lagu daray capital introduce oo lagu daray profitka oo laga jaray 2,200 طبعا ha isticmaalin excel imtixaanka laguma ogolo excel ha kullu go'in aniga markaan wax sharaxayo excel kan isticmaalaya sifa waqtiga aan u beeqaamino I hope in ay caddahay ayaan rajaynayaa oo ay clear ku tahay okay hadda net assetka aad u taqaano capital ahaan
isla mucaadaladan ayaad dabaqaysaa haddii macluumadaasi ay kaa maqan tahayna madaxa ayaad xoqonaysaa aan su-aashan isla fiirinno su-aashani waxaana la weydiinayaa waa maxay capitalka at the beginning of the year at the beginning of the year markii hore closing ayaa la weydiinayay hadda capitalka beginningkiisa ayaa la weydiiyey bimacnaa isla mucaadaladii ayaan dabaqayaa adiga ayaan su-aashani kuu daynayaa su-aasha ugu dambaysa ayadana adiga ayaan kuu daynayaa laakiin isla fiirino maxaana la weydiinayaa profit ayaana la weydiinayaa profit or loss ee sanadka macluumaadkana waa lagu siiyey bimacnaa dib ugu laabo mucaadaladii adiga ayaan rabaa inaad ka shaqayso kadibna tusaale ahaan oo kale jawaabta aan ku siiyo jawaabta qaybtani waxay kuu soo bixi doontaa haddii ay kuu soo baxdo 55,500 bimacnaa jawaabtaada wadada aad martay sax weeye 55,500 waa inay kuu soo baxdaa qaybtanna jawaabta saxda ee la raba inay kuu soo baxdo waa 54,000 weeye adaan kuu daynayaa in aad mucaadalooyinka aad dabaqdo